السلام عليكم كسو دوادا أصحابي مقال عصب جن شياطين يا ملائك إن الله ينتي صورة قلا واحد دد بدن اسكو ديان إني سي خيالي أو صوريستان قصوين كعجيب كهي مخلوقات كلاياب كلاهي الله كوشيغي كتاب كقرآن كريم كأه هذا بس يعني خيالي أهين waxaan maanta muuqaalkan in kula wadaagi doonaa tijaabooyin aan ku soo ururinay makhluuqaad la yaab leh oo lagu xusay kitaabka Quraanka ah iyo diimaha loo yaqaan Ibraahimiyada kadib markaan daraasad badan ku sameeynay mawduuca waxa isku dagi noqday mid cajiib ah oo aan ku soo ururinay makhluuqaad la yaab leh si aad uga bogatid si daawo muuqaalka laakiin intiina aan guda galin haddaad nagu cusub tahay subscribe taabo si aad ula socotid muuqaalada dambe soo galino saddex makhluuq oo wax gumaada maaha kuwa ku hadlaynaa kuwa filan kartoonada ee waa kuwa lagu sheegay kitaabka Injiil sida uu sheegayo kitaabka Injiil iyo dabcan qisooyinka laga soo waariday dadkii diinta haystay intaanu basharka ee adduunka keenin waxa uu ahaa adduunka mid maran dhanka kalena waxa qayb kamid ah ku noolaa saddex makhluuq oo cabsi badan waxaanay kala ahaayeen Zizi Loyathan iyo Behemoth kaynu soo qaadan doonaana waa Loyathan waxaana magaciisa lagu xusay dhammaan aayadaha ku jira kitaabka Injiil sadarka si wacan u tilmaamayana waxa uu yahay maalintaas waxa uu boqorku ku ciqaabi doonaa seeftiisa shaydaanka Loyathan maska cararaya waxaanu dili doonaa mastooliga badda sida Injiil sheegaysana Loyathan waa makhluuq xajmi weyn oo ku nool badda waxaana qisada makhluuqan laga sameeyay filim sanadkii 2014 An-Niflim haddaynu sadarka Niflim ku baarno Tawraad inagoo ka raadinayna Google waxaanu arkaynaa inay ahaayeen makhluuqaad la yaab leh oo waaweyn oo loo yaqaanay An-Niflim waxa lagu sheegay makhluuqan kitaabka Tawraad gaar ahaan sifr takwin 6 waxaana yuhuuddu ku tilmaamtaa chapterka sifr takwin qaybaha kitaabka Tawraad ugu la yaabka iyo cajaa'ibta badan isagoo ka mid yahay waxyaabaha la yaabka leh ee qaybahaas kitaabka kaga qoran makhluuqan Niflim waxaana si gaar ah lagu xusay sadarkan waxaana yuhuuddu ka aaminsan yihiin Niflim inay ahaayeen makhluuq dhaadheer jismi ahaan u weyn cara kulul kibir badan waxna burburiya dhulkana fasaad badan ka geystay daabatul ardi dhammaanteen waynu maqalnay qisada daabada diinteenu sheegtay inay soo baxayso aakhiru zamaanka waxaanay ku xusan tahay suuradda naml aayadda 2 yuhuudda iyo masiixiyiintuna waxay iyaguna sheegaan daabad soo baxaysa aakhiru zamaanka balse ka duwan qaabka diinteenu uga hadashay aayadaha Injiilna waxay leeyihiin waxaa jira daabad soo baxaysa waxaana la socday nabi beenaala ah oo dadka faraya inay iyada caabudaan isagoo isku dayay inuu ku qanciyo dadka mucjisaadkiisa dabadeed waxaan arkay bahal soconaya dhulka waxaanu leeyahay laba geesood oo shabaha kuwa idaha wuxuu u ciyaa sida mastooliga waxaanu sameeynaa calaamado waaweyn xitaa dadka hortooda waxa uu samada ka soo tuuri doonaa dab dadka dhulka joogana waxay ku halaabi doonaan waxyaabahaas uu sameynayo bahalkaasi Lilith kulligeen waxaanu garanaa dhacdooyinka feminist waana olole yuhuud iyo reer galbeed dabada ka riixayso iyagoo dumarka ka dhaadhicinaya inay xaq iyo xuquuqi ka maqan tahay isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ragga wax kasta kala mid ahaadaan haddaynu sadarka feminist ka raadina Google waxaynu helaynaa majalad sidata magaca Lilith waana majaladaha yuhuudi leedahay kuwa ugu waaweyn caalamka qofka magaca feminist adduunka keenay soo galiyana waa aqoon-yahanada yuhuudiyada oo loo yaqaan Judith Briscoe waxaanay leedahay kitaab ay ugu magac dartay imaatinka Lilith haddaynu kelmadda feminist halkaas kaga gudubno waa maxay kelmaddan Lilith ee naga hor imanaysa markastoo raadina feminist caalimada ku xildheer diinta yuhuudda ee Judith Briscoe waxay ka soo xigatay fikradda qisada Lilith ee ku taala kitaabka Sifr al-Malakris Eyl waxaanay sheegaysaa sheekadu inay Lilith tahay gabadhii ugu horeysay ee taariikhda nin mucaarada taasoo ay aaminsan yihiin inay yuhuuddu ahayd xaaskii koowaad ee Nabi Aadam calayhi salaam iyadoo diiday kuna gacan saydhay inay Nabi Aadam la noolaato iyadoo ka doorbiday inay shaydaanka raacdo waxaanay aaminsan yihiin yuhuuddu inay ahayd wixii ku dhiirigeliyay inay Nabi Aadam iyo Xaawa cunaan geedkii ka soo saaray jannada waxaana looga aaminsan yahay Lilith yuhuudda agtooda inay tahay shaydaanka jacaylkiisa ama naagtii shaydaanka qisaskan oo kale waxa isla markiiba qaata filim sameeyayaasha waxaana u daliilay in 2 sano ka hor Lilith laga sameeyay filim cabsi ama khaakha oo la sii daayay 2018 iyadoo sheekada filimka laga xigtay ta ku taala kitaabka yuhuudda qisaska makhluuqaadku intaa kuma eeka hadduu ku cajabiyo isku daygan aanu sameynay like taabo waxaana la soo dhaqsan doonaa qaybta 2